gabar ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa arooskeeda markii uu horeysay ku dhigatay aalada live-ka iyadoona Najmo Cudoon haatan ay kaligeed arooskaas ku ahayd maadaama saygeeda oo si live ah arooska uga qayb galiyay uu ku sugnaa isla goob kale isagoona haatan aan ku sugneen goobta aroosku ka dhacay maadaama ay ahayd arooskii uu horeeyay oo aalada live-ka ah si toos ah looga galbiyo bulshada reer Gaalkacyo qaar kamid ah dadka ka soo qayb galay munaasabada ayaa si weyn ula yaabay arooska haatan live-ka ah ee lagu galbinayo maadaama si weyn ay badi ula yaabeen Najmo Cudoon oo horey u sheegtay in ay tahay gabadhii reer Gaalkacyoodka ahayd ee xaniyaheeda ku joogtay Gaalkacyo dad badanna ay si weyn u garanayaan Najmo Cudoon haatan ku muuqata badi si weyn ay u yaqaanaan Soomaali fara badan maadaama dad badan ay ka qoslayso madadaalo iyo maadeysba had iyo jeer ay ku soo bandhigto baraha ay isticmaasho ay uga socmaasho social media dad gaar ah oo ka soo qayb galay munaasabadeeda ayaa si weyn u gilgilay hoolka arooska haddaba sidee wax u dhaceen halkee ka dhaceen iyo yaa dhigay ayay dad badan isweydiinayaan ee ila daawo in yar oo kooban oo aan ka diyaariyay munaasabadaasi iyadoona ay tahay munaasabadii u horeysay ee aroos ah oo aalada live-ka ah si toos ah looga galbiyo isku dhaqanka boogayaan subaha ayaa guur dhex maray yaryadhalani isiyadii darweysol garaadadii waxay guri galeen gobolkii ragiyaayay gaasha badan hadday goobi tahay away guri galeen gasigii rag iyo gaaridii haween oo guurkii qarniga loo garaacay saacad hadday goobi tahay away guri galeen gasigii rag iyo gaaridii haween oo guurkii qarniga loo garaacay saacad ilmagobo ka tidhi jacaylka axsana u dhigiteen gacmaha ilmagobo ka tidhi jacaylka axsana u dhigiteen gacmaha kalgacayl qodlade jacaylkana goglade gobay caashaqii gogorteen midhihi kalgacayl qodlade jacaylkana goglade gobay caashaqii gogorteen midhihi